بسم الله والحمد لله أولا إلهي بمهات إسكالي الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan halkan u soo fadhiistay maanta oo miiriyihii ugu soo noqday arinaan xalay kala duwaayay oo laba dumar ah oo intay live soo galeen iyagoo wadaada waaweyna intay halkaas soo istaageen waxaan qaadan waayo ka jibsan waayay ku hadlayay horta gabadha kale wajiga rabadka la way dameynaysa waxaan la hadlayay foosiyeen dhacasay horaad aniga oo hodan Muuse oo ninka guri sareeya la yiraahdo buuku qoray soo ka soo hadlay baad inta miiriye soo gashay anigay soo qaatay oo anigay soo ataagtay horta waxa ku sheegay haybteed garawaayay goortanaad reer ka noqotay xilligaad gashay waa taari waa la galaa reer kanay xilligaad reer ka noqotay reer kan Sacad Muuse xilligaad noqotay marba difoosahooda u tad kolba noo soo abaarayso soo sheeg adigan ku leey waxaan anigu garanaya xeerinaya oo dhanadi dhali karta garanaya on silay foosiyo eedada u turo hadaan wax ka yiraahdana wallahi inaan miirtay soo istaagin oo taariikhdaadu buug bay ku qorantay wala soo keenay hadaad fadhiisan weydo inta sanadiga kaaga tagay kugu sii tiigaali maayo gabadhii kale xalay ka jiifsan waayay tircirka iyo dhulka iyo muxliyad iyo balaayo aanan garanaysa isu helisay ayaan doonayay inaan su'aal iraahdo na taariikhdana maroorsanaysa imika doonaysa inaad samaysataan ma to aydan horeba u lahayn ba maanta yeelanaysa shalay baan arkay odaygiini waa laaba buug annaga nagu qoro Sayd Cabdulla Xasan ku qoro dad ku qoraayay maxayda dadka ayaa taariikh lagu yeeshaa lagu taariikh hadaad rabto annaga lahayn oo habli boqolka halaad iyo maadinka iyo qoriga iyo laga bixinayo farda iyagoo uurka ku jiray la rahman jiray la oran jiray inantaasaan doonaynaa de waa aniga walaalo weyna garxadsa inanta yaraad caayaysaa dhali karaysaa kaltoona asku inta dhowrayso doon shirkaad sheeganaysa way jirin iyadu kolba ina saqiir ka nixisaan ba u soo istaagtaan miiriya marna aniga soo dhigataan marna caruura la dhanidla joogaad dakada ka fuushaan horta ereyga taasan ka leeyo adan maanta halkan ku fadhiya ta aydu ninkii lahaa diidayo adiga oo fuusiya ay diiday kugu sheegaysaa miyay kaltuun qaadan bay kula tahay ayda ninkii lahaa diiday qaadan mayso taariikhda reerkiina u sameynaysa Sacad Muuse garxatiseela waayeen oo mid adduunyada lagu ogiyo oo laanta soconayn baa mid baan ka oranaya ana ku faanila oo taariikhda ila lambareeriyada Ingiriiska taala inaan ku faana oo alxamdulillah rabbil caalamiin waxa tiri geed baan ugu xiranay ku tiri wadaadii wajiga balaadneed ku ag fadhido Sacad Muuse u dhaxdo ka dhalato dhinacna uga bay dhaqaaqan oo taa inankii habareeyay soo holan kugu qabay miyaanu si fiiga kugu jirin halka miyaanu kugu jirin saabti ka soo raacdo wadadeeda taa wad iska riixday hadaba anaga ku toosinayna kula caydaada u toosay u soo fadhiso oo intaad reerkiina ka reebtay anaga ku sheegana u soo fadhiso horta way ka soo markan adiga hadalkaaga soo hadal qaadiye afkaaga naagtaan soo xasuusto aray qabato xalanka seexan waay waxaan ku sheegay horta waxa tirmi xilliyadaanunay hablo halkay ku meedhan ku qarastistaanunay hablihii ibullo ninkii loo oran jiray iyagoo la qabo la tuman jiray la socday ee ragooduna darawaliinta wahaayeen adiga naadeerta ahayd meedada ahayd taariikhda wad ka ilowsanti anagu ya kaltuun waxaanu ka soo jeednaa reer masaajidka dhagax dhiga adna waxaad ka soo jeedaa dadka fakinka dhagax dhiga horta taariikhdaas aynu kala leenahay haday xilliyada haday wareeg kala tahay taariikhdayna kala sheegayso ina kala qoraysa waxa tiri inta aan ku daro tii uu sigaan galaya ya qataarkii sixirkaad ka hadasheen waxaad sheegtay uu sigiinu inuu raga seexiyo barkimada ku qabto khurta ku sameeyaan arrimo ayna ka sheekeen karin oo Jabuuti seexisay Ismaaciil Umar Geelle faroole xaga Itoobiya meel dhaaftay ma jirto de uu sixir lagu daray baad noo sheegtay oo in Umar yaran ku seexina tiray alciyaadu billah fanauudu billah anigu waxaanu ka leenahay idinka idinku dabaaba xiran uu sigan udgoon baan sameeynaa shukri dheer iyo nicimo dooyinkay sameeyaan falillahi hamdu fal waxaan ka leeyahay mid baan kuugu darayaa ka ilaaway uu siga farsamaysan dadaydan idin waalatay 60kii furtayna foosiyo nacas qalbiga Allah idinka reebay mad malmalkiina aad ku dartaan iyana tiraadid ugu xidhaan meel lagama tageen be maxaad saaxiibada uga xistay waxba ku tiigaali maayo ahum taraatimid dad kale aad seexinaysa curiyaankaaga man mooday inaad cagaa kaga riday laga qaaday wad ogtay
ninkaagii carruurtaada dhalay ingiriiska in saa lagaaga dhex qaaday intaad fadhiisisay mala isaga seexiba istiraacada uu kaga dhacay taana waa loogi annagu markaa falka falaysa minna fa huwa minhum wa xadiiskii rasuulka calayhi salaatu wasalaam idinka idinku bas inaad inta ka reebta ma yahay waa taa unsiga oo waa unsiga sixiraysan aad sheegteen ilaahay baanu ka magan galnay wixii laga faani jiray ee laga xishoon jiray ee ceebta ahaaba dariiqa qeexa ka qaadaysoona ku faanaysa tii calankan soo gudbay calankanaad sheegateen calankan anaa u dhintay anaa soo dhiciyay anaa dhisay calankanaad ku faantay waad soo hagoogatay adigu markan anigu u dhintaan soo dhicinayay basaas ba ka hayde askarada dhiibay oo bul wuxuu ahaa ninkii dhiibay inta keebuu hadaada soo ka dhiibay koodbuur buu ahaa kii ka dhiidhiina koodbuur buu ahaa haddaan taariikhda kaaga hadlaa tir calankan aad soo huwatay ninkii u dhintay anuu ahaa kii soo dhiciyay anuu ahaa taariikhdayda ku faalle oo wax ku sheeglo wax ku qabsalo lambareeriyada ingiriiska yaala ku darso tacliintan kuugu sheegaya aqoon haddaan kuu sheego aabi waxbarashada anu iga dhasho maxamed axmed cali yuusuf xaaji qabiilena kii labaad buu ahaa yuusuf xaaji aadan cilmi qabiile anuu ahaa adeerkay allah yarxam raxiim ku darso cumar nuux buu ahaa isna waa qoraa af soomaali ninkii qoraa waa cilmigii waxbarashada xagga cimilada cirka haddaan u kaco ninkii horeeyay diyaarad duuliyaanu ahaa waa kabtanjay haddaan kuutay taariikhdayda waabana koobi karinay haddaan wax kuu sheegay tayada ku faalo Valentin day baad baratay nin Valentino gaalo loo dabaaldegay cilmi boodhari baan ku faanila oo ku faal lahaa oo xaqud iyo qabiilba ka wacra oo beeshayda ka soo jeeday allah yarxam raxiim oo adduunka laga aqoon sida ugu qoraayo looga inay garato Ingiriiska had waxa jir Talyaanigii baanu la hadli jirnay dawladaha la shaqayn jirnay inay garadaan adeerka adiga adeerka muuhayn faarax afayda anu adeerka adiga adeerka muuhayn bal taariikhdan leediin ee maanta la soo baxdeena doonaysan meediyaana la timaadaan halkay ka timid gacan ku rimiska taariikhayda la hayba doonaysan inaad samaysataan taajir baad ka hadashay kuwii xabaalaha ku jiraadii keentaado waxaad keentay odaygii xoogsaday ilaa u naxariistay baradhada iyo basasha ka soo qaadi jiray taatu ko qaar dhintaad ka hadlaysaa ninka meel gruubka Saudi maal iyo biyaha haysta ee Afrika ninka saddexaad ku jiray naftilo xaya inaan ka yara ku waalateen ee Cabdikariin Maxameed ee Afrika soo qaaday ee jahooradii Soomaaliland ee Afrika la soo siiyay bilad saraf iyo shahaado sharaf ayaan ku faan waayay ee meediya soo wada istaagteen rag iyo dumar wada dabaabaxdeen ilaahay qalbiga idinka reebaysanay aamina oo Nairobi u taajirsan weedaday waa gabadha labaad ee adduunka Afrika balada xoolahan adeeysan xoosh baaba gaajo u dhinto idinkaaba todobaqad loo taariikh hayst lee bal annaga waxaan aad nagu sheegtaa tiri waan ka talina talo dalkay talla ya taariikhana lahayn bereerkan deedeeyana helaan taana taasa kaayir walkii eedaday khatray tu kalaan ka oranaya calanka inanta waxaan ku sheegayaa calanka Soomaaliya hadee huwatay kaltuun madiintay ka baxday shayna arka hade mise yuhuudi bay huwatay ay qaadatay ra'iisul wasaare saddexaad ay xamar dawaanin adeerkaya inaan salaamiyana sharfaba xaq buu igu leeyahay inaan tagaba markaad u dabaaldegaysa diidayso Kenya markaad sacadka u tamaysan badeeda qaadatay daadna Ethiopia baa ku gali ina artan wuxuu ahaa shalay toolay ra'iisul wasaare saddexaad maantana waxa mahad uu keen maxaa qadiga kaaga xiran shalay markuu Umar Arta qaalimin madaxweynaha gurigiisa ku soo dhaweeyay madiintu ka baxay mise tiino idinku waxa weeyaan muqaddis taayaduna waqti kale naftiina been haw sheegin hadaba runta u sheega Soomaaliland waa reeraysu mido heshiisa hadii la safkaro waayna waa la kala tagaya calanka Soomaaliyeedna waa dad aan isku dhigno isku dhaqano isku diinayo ehelay oo Soomaalidnimada naga dhaxayso dhibaato dhifidheefoon qaybsanayna naftiina horta taa ka qanciya kaltuun baad sheegaysaa boqol baa huwanaya ana qabad ku xidhay qaan cadaan maana qabad idin ku xidhay adduunka dhan baan anigu leeyon tagaay oo joogay min ilaa Ethiopia min ilaa Kenya dadkayga wadane maqsadina anigu in adeer macaanay gabiilaytu wajaalahay alxamdulillah rabbil alamin dhulkayga la balaariyo dadkayga la balaariyo oo afyaqaan baan u nahay oo lambareeriyada Ingiriiska taariikhdeeda ka soo eeg intaasaan ka oranaya
anaga doonina ma qaado mana yarin laakiin waxaan ku oranayaa markaad doonaysa inaad hadasho oo taariikh aan lahayn inaad samaysato dib isu raac oo raadkiina ogow kaltuuna ma gaadhaan anay ma gaadhaan الله الرحمن كأنه نجد اللي تدان كفارنا مركز أي كتير هو يدا وأبوها وميلو كم بحدين فلله الحمد أنا ميلو كبحين كرتون ميلو كبحين هدي أنا وفان دونين أنا هلا أنا وفاني سكنا هذا كفان كومو سكنا نعم والله أنا هذا كفان كومو سكنا أنا وفاني سكنا قصر يفان يقصر كيفان كوبا أو بس سنتي دلك تشوكت هذا هيدين ريكورد باندبا أنا ريكورد بانديجو وديوكتي أنت حسن كعجب بحياة مالين تنبه هدي أتصور هذا القادو أما ريرة أيضا أما تاريخ دو يدا بدك ملون الندن كي كم تقال له تاريخ دو يدا إسقطها نعم تاريخ دو قرنتي مركي ليلها الشيخ ولا هنك إنجليزي إذا كان إذا كنت تقول بينو يسكر حتى ستروجن يا جاي من كتري تاريخ تنخف أنا عنك هيستا علمي أنخف أنا عنك هيستا أبو أنا أنخف أنا عنك هيستا مرتي أنخف أنا عنك هيستا رجعني ما يدقس يكرتي يركض على هتان توني أنفانا عني يسوق ناتي لما كانوا حنجي كجت جيا سلامتي سلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.